marka ugu horeysa waxaan salaamayaa anigoo ah Maxamed Xuseen Ciise xogayaha guud ee xisbiga UCID waxaan salaamayaa ummadda gaar ahaan ciidamada qaranka ee mar walba heegan waa difaaca dalka Soomaaliland maanta aan warbaahinta ugu yeernay laba qodob baanu miisaanka saarayna oo ku hadli doonaa haddii alla idhaa labada qodob oo kala ah mid wax weyn arrimaha doorashooyinka iyo xisbiga mid ku saabsan midna xoghaye Bashiir Xamariba ayaa iga dambeyn doona oo wax weyn arrimaha nabadgelyada ciidanka marka haddana aanu tayada ku horeeyo waxa jira warar suuqa soo galay ilaa shalay oo dad cadow ku ah xisbiga UCID iyo gudoomiyaha Faysal ay warbaahinta iyo social media ay ku yara baahiyeen oo ah magaranta inuu murashaxa madaxweynaha xisbiga UCID uu ka tanaasulay iyo magaranta sheekooyin noocaas ah anigoo ku hadlay afka xisbiga UCID iyo afka gudoomiye Faysal Ali Xuseen warkaasi wax ka jira ma jiraan haba yaraatee murashaxu xisbiga UCID haddii alla idhaa oo ilaahay naftu inoo daayo 2024 arrinta laga heshiiyay imika in doorashadii madaxtooyada iyo tii ururada isku sidkan la qabto murashaxa waxa ah markii horena ahaa imikana ah waxa weeyaan waa Faysal Ali Xuseen haddii alla idhaa taas waa taa wax xusid mudan in muddooyinkii dambe shacbiyadda gudoomiye Faysal ay aad u sii kordhisay oo dad badan oo gobol walba joogay iyo degmo walba ay aad u taageereen oo arkeen inuu yahay murashaxiinta imika socda ninka kaliya ee mar walba difaaca dalka heegan u ah ee tuutaa u xidhay inuu difaaca dalkiisa marka shacbiyadda badan ee uu helay gudoomiyuhu darteed ayaa ma garanaysaa dacaayadaha noocaasa loo sameeyay aan saliyo raatoon lahayn gudoomiye Faysal waa nin la xajeclo badan dalkan ka hayso hore inuu garan weynay inuu madaxweynaha isaga u doorano qof kaga haboon ma jiro oo qof kaga haboon xilkaasuna ma jirto gudoomiye Faysal marka wararka noocaas waxaan waxba ka jirin waxaan u sheegayaa dhammaanba taageerayaashii hore ee xisbiga UCID iyo taageerayaasha lixaadka leh ee ku soo qulqulayay xisbiga degmooyin iyo gobolba inay diyaar garoobaan imika miisaanka waxaanu saaraynaa haddii alla idhaa difaaca dalka xaggaasaynu u wada jeedsanaynaa marka laga soo baxo haddii alla idhaa ayaynu iman doonaa tan doorashooyinka dhammaantiin waad mahadsantihiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan doonaynaa maanta inaanu ka hadallo arrimaha nabadgelyada ee dalka alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaanu aad u soo dhoweynaa sidii horeba xisbigu ugu soo dhoweeyey go'aankii beesheenii guurtida iyo odayada iyo maxaanku idhaahdaa cuqaashu go'aankii ay gaadheen ee dalkoo dhani ku nafisay ee la wada qaatay ayaanu weli soo dhoweynaynaa si buuxdana waa u qaadanay inta naga khusaysa intaa dabadeed waxaa la yidhaahdaa maamaha Soomaaliyeed baa tiraahdaa lag laaba laguma cuno warnimayo haddii la doonayo dalkan inay wax toosaan oo waxa la sheegaya saacad walba dadka lagula hadlaya ay dhab yihiin dadku inuu yiraahdo waxna aan qalana midiyahana aan qarsana maaha caaw qaar baa buuri naga fuushan asbaabta buurta saartay waynu garan karaynaa cadaalad darra saartay waanan idin iftiiminayaa maanta qabyaaladda uu ka maarmi waayay Sacad Cali Shire oo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka qorshe saddex wasaaradood waqtiyada qaar maamulayay in oo foreen ka maarmo ninka islahow ha dhacdo dhici mayso si weyn in wax la isu yiraahdo wanaagsan dhici mayso laakiin waxa weeye inaynu wixii aynu galay ka soo noqono ilaahayna uga toobad keeno isnaca iyo xaqdiga iyo xistigu madaxtooyadaas ka bilaabmay meel kale ay ka yimaadeen ma jiro annaga kor u oranayna madaxtooyadaas ka bilaabmay madaxweynaheena bilaabay sidiina way u socotaa example habeen saddexaad guurtidii habar jecel go'aanka soo saartay madaxtooyada gashay waxa la yiri wasiirka
haloo yeero gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha bahalkii maxaan ku yiraahdaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda in la yaqaanay noqoto marka inta inaan u shaqeeyo ma suuroobayso inta inaan shaqaalo u ahaado ilmaada reer ma suuroobayso anigoo dalka jecel anigoo dadka jecel anigoo wada dhalashada jecel anigoo dadkii ugu dambeeyay war ka daaya arrimaha qaar lahaa war way hagaagi doonaan joojiye waxaan leeyahay sidii aynu u qaadanay codka aynu u wada qaadano aynu ku shaqeyno alla ka baq iyo istixgelin iyo walaalnimo aniga madaxweynuhu waa walaalkay uu ila dhashay ma xiqdii karo mana xistii karo inuu xisdiyo iyo inuu xiqdiyana ma oo magac igu xisdiyo igu xiqdiyo intaas waa inta waxaan u dhaafayaa inamada buurta jooga go'aan fiican baa soo baxay waa la wada qaata waxaan filaynaa inaad si wanaagsan u qaadataan waliba sida ugu degdega badan u qaadataan idinkoo eegaya saldanadiina qaadatay arrinka ha bari furina odayadiina dadkiina ha bari furina annagu asxaab baan nahay laakiin beel ahaan baa dulmi lagu tirsanaya beeshiina way qaadatay mar hadday qaadatay sida ay u qaadatay waa inaad u soo degtaan haddii ilaahay yidhaahdana aad odayadiina iyo dadkiina iyo baaqooda tixgelisaan arrimaha nabadgelyadana waa in laga wada shaqeeyaa waxaan hambalyaynayaa aan bogaadin badan u dirayaa ciidamada qaranka waxaan leeyahay rag waa ku feekaca insha Allah waxa weeye wax badan oo ka horeeyayba waa ka nabad qabtaan waxba maaha guuli waa ta dambe ilaahay ha idin garab galo waa idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu